السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب دربنتين وانين سلامية ميلول بوا جوكتان يا قرول بيدين تاي وجنال كيني وبرادر كيني عاد وبرتين حد يجير إنو يلسو وداغو حد بوحي أبليده مدان كلا مغنين أون كلا باديوني بس ما انتم محاني دين ودا أو عصب أما انتينا بدن أنا الأوغين لغيها بي دادك قار إنا مركاسي la socdaan maanta waxaan ka hadli doonaa ama fideogani wuxuu ku saabsan yahay TikTok-gaaga qaabka markaasi qof friends kula ah oo adiga follow u tahay asigana follow ku ah qaabkii magacii asiga uu ku qortay maahane magac kale oo adiga aad ku garan kartid sidii aad ugu qoran lahayd meeshaas ma ku noqdaan ma soo fahanteen yacni TikTok-gaaga qof friends ka tihiin ama asxaab aad ka tihiin oo yacni follow adiga ku ah adigana follow u tahay qaabkii magacii asiga ugu qornay inta ka badashid aad adiga magac qaas ah aad ugu qoran lahayd sida WhatsApp oo kale hadaa qof numberkiisa save gareysanaysid waxaad ku qoranaysaa naanaystiisa ama magaciisa ama waxyaabo asiga caan ku yahay ama adiga markaasi aad ku foodeen karto kale marka qaabkaasi ayaa maanta idinla wadaagayaa يا ورد إن كنت علينا إن فانتين عملنا يا فيديو جانا سفي عن أوفر صدا هالجي عن قل دونا يا ماشي أمر كاسي وح بدن أنا كبدل دونا واسكي إيزي وفضل ده قفل أو إذا كذا كم دانا وسمين كرا وإحساس وسي على جماعة مركا let's go أدياد نقول سبته channel كفصل دو subscribe كناه أنا يلابن هذا هرنا اللي جبتنا هذا يدوم ما سنتهاي فيديو جانا إحنا كيلابن إن أمر كاسي نولا جرسو شير نو دادو وهدي ادابودو hadana noo bilaaba barnaamijkeen markuu warayso waxa gali doontaa TikTok-gaaga ayaa soo gali doontaa markii aad soo gashay kadibna waxaad raadi doontaa qofkii aad doonaysay in markaasi aad magaca ka bedesho anaga hadda waxaan u sameynaynaa tusaale ahaan ama qaab example ah ayaan u sameyn doonaa waxaan raadi doonaa qof ka mid ah asxaabteeda ayaan raadi doonaa kadibna qofkaasi ayaan ku sameyn doonaa qaabka markaasi magaca aan u bedel lahayn tusaale hadda waxaan ku sameyn doonaa gabadhan ayaan waxaan ku sameyn doonaa in magaca hadda ugu qoran ee aad wada arkaysaan in markaasi aan ka bedelno oo magacnaga iyo qaase aan ku qorto si qofkaasi hadhow markuu ila soo hadlo kale aan telefonka appka aan ku dhex jirin laakiin qaybta kore markuu qofku wax kuu soo diro يعني waxaad ka arki kartaa qaybta kore ayaa waxa ku soo koraya hebel ama heblaayo ayaa markaasi ku soo qortay qoraal oo ku soo dirtay messenger marka si aad u fahantid in qofka qoraal ku soo qoray uu yahay heblaayo waxa gal doontaa profile-keeda ayaa gal doontaa profile-keeda markii aad gashid sida u jeedaanba qoftan hadda waxaan naanay friends ayaan naanay kadibna halka meesha aad qofka markii aad ka follow gareynaysid ay casaanka tahay markii aad friends ka tihiin ay cadaad doonto geeskeeda waxa ku yaala calaamad yar oo sida sidinkiga ah oo garaangar leh calaamadaasi ayaad ku dhufsan doontaa sida u jeedid markii aad ku taabato ama aad ku dhufatana waxa ku soo bixi doono qaabka noocaana waxaad ka dooran doontaa qoraalka ugu horeeyo oo markaasi ay ku qoran tahay name janji adiga English inay kugu qoran tahay laga yaabaa anigana luqad kale ayaa igu qoran halka qalinka uu ku sabaran yahay ayaa taabsan doontaa kadibna qofka magaciisii sidaan ayaad u bedeli doontaa magac aad iskaga baashaarayso kugu qoro heblaayo xaliimo faarax dhuxulow iyo maxaa lahaye axmed madoobe iyo xiiray xariir dhuxul maallaa wixii magacaad doontid oo aragtid adiga qofkaan aad ku aqoonsan kartid iskaga qoro oo macnaha ku safgarayso markii aad magaca ku qoratid magacii aad doonaysay aad ku qoratidna kadibna halkaas ayaa waxa ka dhigi doontaa save oo waa save garaysan doontaa tan kale haddii qoftaasi ay video soo dhigta ama qofkaasi oo video soo dhigana waxaad fahmi doontaa inuu yahay heblaayadii aad magaca ku qoratay qalanja iskaga qoro xabada jecesha oo kale hadday tahay qalanja iskaga qoran xubbi maxaa lahaye malabeey iyo macaaney iyo waxa waaye muluqay iyo wax la iskaga qoro midaad jecesha hadday tahay mid ciyaal fooda hadduu yahayna magac uqaasa oo yacni naaneysa iskaga qor qof alaala qofka rabtid magaca waa ka bedelin kartaa qofkaas magaciisa sidii ayuu u ahaanayaa laakiin adiga ayaa markaasi magaca dhankaaga oo kaaga bedelan yahay waxaan u malaynayaa inay la fahanteen oo aad ila garateen videogan haddii aad ka heshay oo ku qanciyay waxaan kaa codsanayaa
in markaasi aan ila dhaafin leegta inoo saara wixii oo markaasi su'aal isweydiinaya qaybta hoose ayaad markaasi igula soo hadli doontaan ama aad iga soo qori doontaan. tan labaad ayaantaa soomaalida waxay ku daadatay Calabar app la yiraahdo oo sida TikTok oo kale loo isticmaalo, laakiin TikTok waxyaabo badan kaga duwan yahay. dad badanna ee markaasi la yiri lacag ayaa laga sameeyaa iyo waxaas laga sameeyaa. marka waa soo tijaabiyey qaabka lacagta looga sameeyo inay run tahay iyo inay been tahay, taasna waan idin soo wadaagi doonaa insha Allah videoga xigo ayaan kaga soo hadli doonaa. taas intii aan ku kulmi doono. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.